maanta safarkeenu waxa uu ku wajahan yahay Hindiya, gaar ahaan gobolka Rajasthan oo ay ka jiraan diimo iyo dhaqamo la yaab leh. Waxaan diiradda si fiican u saari doonnaa qabiil ka mid ah qabiiladaas, sida diintooda, dhaqankooda iyo caadooyinkooda abliga soo gaarka ah. Ku soo dhawow mowduuc xiiso leh oo ku saabsan qabiilka Bishnoi. Bishnoi waa bulsho ka mid ah qabiilada Hindiya iyo koox diimeed u aasaasay macallinkooda Jambashwar ama sida ay u yaqaanaan Guru Jamboji, kaasoo noolaa qarnigii 15aad. Magaca Bishnoi micno ahaan waxaa loola jeedaa 29, taas oo ah tirada mabaadi'da ee u aasaasay macallinkooda, waxaana ka mid ah 29kaas mabda' in aan la dilin ama aan la cunin xoolaha nool, in aan la goyn geedaha iyo in aan la cabin qamri iyo kuwo kale oo aad u badan. qabiilkan waxa ay asal ahaan degaan gobolka Rajasthan ee Hindiya, gaar ahaan deegaanada ku teedsan lama degaanka Thar. Sidoo kale qaar ka mid ah bulshadan waxa ay ku nool yihiin gobollada sida Haryana, Punjab iyo Gujarat. Qabiilka Bishnoi waa bulsho caan ku ah ilaalinta deegaanka iyo daryeelka duurjoogta, gaar ahaan deerada oo agtooda ka ah lama taabtaan. Bulshadan waxa ay leeyihiin dhar dhaqameed u gooni ah oo ku habboon deegaanka kulul ee ay ku nool yihiin. Ragga waxa ay xirtaan dhar cadcad oo isku joog ah iyo maro dheer oo ay madaxa ku duubtaan, halka dumarkooduna ay xirtaan saari guduudan iyo maro madax daboolaysa oo loo yaqaano odni ama dubatta, kaas oo ka mid ah dhaqanka dumarka Hindiya. dadka Bishnoi badankoodu waa Hinduus, waxa ayna rumaysan yihiin falsafadda dib u dhalashada, iyagoo aaminsan ahimsa oo ah in dadka dhintay ay dib u soo dhalanayaan iyagoo xayawaano ah. Tani waxa ay dhaqan guud u tahay dad badan oo ka soo jeeda Hindiya oo rumaysan in xayawaanku ay matalaan ruuxdii awoowayaashood. meelaha ugu caansan oo dhaqankaas lagu soo bandhigo waxaa ka mid ah macbad lagu magacaabo Karnimata oo ku yaal gobolka Rajasthan, waxaana lagu quudiyaa halkaas in ka badan 25,000 oo jiir, kuwaas oo loo yaqaano kabaas. dadka dhaqankan aaminsan jiirarkan waxa ay u haystaan in ay yihiin xubnaha qoyska dib u dhashay ee Karnimata. dadka soo booqda macbadkan waxa ay aaminsan yihiin in nasiibkoodu fiican yahay haddii jiirkaas uu dul maro korkooda. tan xusidda mudan waxa ay tahay bisadaha halkan lagama oggola, waxaana si adag loo ilaaliyaa in ay soo galaan si aanay u cunin jiirarka halkaas ku nool. haddii aan u soo laabanno reer Bishnoi, meel aan ka fogeyn waxa ay ku leeyihiin macbad lagu magacaabo Muqtidaa Mukam, kaasoo ku yaalla gobolka Rajasthan. Mukam waxa ay u aqoonsan yihiin xaruntooda ruuxiga ah oo ah halka uu ku aasan yahay macallinkoodii Jambashwar. sanadkii 1847 waxaa dagaal dhex maray Bishnoi iyo boqor ka talinaya Jadbur oo daris la ah gobolka Rajasthan. boqorkaas ciidamadiisu waxa ay rabeen in ay dhir ka soo gooyaan deegaanada Bishnoi si ay uga dhistaan qasri. iska horimaadkaas oo sababay geerida 363 qofood oo reer Bishnoi ah, taasoo keentay markii dambe in la soo saaro sharci mamnuucaya in la gooyo dhirta nool ee deegaanadaas. sida waafaqsan mabaadi'da bulshadan, marnaba ma gooyaan dhirta, mana u isticmaalaan xaabo ama agabka dhismaha ah. inta badan cunto karinta waxay u isticmaalaan saxarada lo'da oo la qalajiyey. waxaa jira qabiil lagu magacaabo Fiil, waa bulsho kale oo ku dhaqan deegaanadaas sida gobollada Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh iyo Maharashtra. bulshadan waxa ay leeyihiin taariikh ku saabsan ugaarsiga iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah. labadan bulsho oo kale ah Bishnoi iyo Fiil waxa ay ku wada nool yihiin hal deegaan, taas oo marar badan keentay is-afgaranwaa maadaama bulshada Fiil ay gooyaan geedaha, arrintaas oo ka dhana xeerarka Bishnoi. si kastaba ahaatee, qabiilka Bishnoi ayaa caan ku ah daryeelka ay u hayaan dhirta iyo xayawaanada duurjoogta ah, gaar ahaan deerada. taasina waa sababta ay guryahooda, beerahooda iyo deegaanadooda intiisa kale ay uga dhigaan meel si gaar ah loogu nafaqeeyo laguna ilaaliyo xayawaanada duurjoogta ah. qabiilka Bishnoi ayaa ku eedeeyey Salmaan Khan oo ah jilaac caan ah oo ka tirsan Bollywoodka in uu dilay deerada madow sanadkii 1998 xilli uu duubayay filimka Hum Saath Saath Hain. Lawrence Bishnoi oo ka tirsan qabiilkan, xubinna ka ah gaangistarada dalka Hindiya, ayaa ugu hanjabay Salmaan Khan in uu dili doono haddii uusan raaligelin ka bixin falkaas. inkasta oo ilaa hadda xukun maxkamadeed oo rasmi ah aan laga gaarin, iyadoona marar fara badan uu racfan ka qaata kiiskaas. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa.
intaa muuqaalka mid lamida kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.